waxay tahay intaasoo dhammi markay dhacayeen dee dadkan meesha ka shaqeeya idinka isagaa idin madaxa qof kastana markuu meel joogo isagaa ku maamuusan oo hadday wixii fiicnaadaanna dee isagaa ku magacaaban hadday xumaadaanna isaga maxay kula tahay inuu ku kalifi karay Yuusuf xilligaa shakhsiyadiisa qof bartay baatay qof la soo shaqeeyay baatay sidanaad ka sheegayso oo dhan baanan ka wada maqlay si ka badan dhammaan dadka soo shaqeeyay in uu meeshii uu isagu xukumayay ay fool xumaato maxay isaga ku kalifayay bay kula tahay muxuu ka faa'iideeyay horta magaceedii horta wuxuu waa reality ma ogtahay inkastoo barnaamijku anigu igu saabsan yahay oo Yuusuf ku saabsanayn oo Yuusuf ku soo hal qaadaya kaliya inta aniga noloshayda ka qusaysa because this about me Yuusuf markii dambe waxa dhacday ila dabagal bas Yuusuf wuxuu sameynayay asaas sameynayay xadgudubyo shaqada xageeda ah wuxuu sameynayay asaga oo madaxii BBC-da ah in uu maaragtay uu rabo inuu madaxweynenimo u tartamo عبد الله يوسف ايش عبد الله يوسف لما ربع ايش عبد الله يوسف ايش شيخ شريف لعبوا ديبنا halka hadan ka dhex kala aaminay sideed dareentay qofkii in ka yar 20-30 qof oo Soomaaliya xukumi kari waayay dhamaantood ka cabanayeen markuu in ka badan 20 milyan soo sharaxay oo Iiraan idin xukumayo madaxweyne idin noqdo anaga 12 qof oo 12 ahayn anaga xarunta ku hel ayuu si wanaagsan noo maamulo ay noo cadaalad fali waay ما فهمت dadku waxay garanayaan bishaaray adiga nin maanta reerkaaga hada isqabataan ninka reer shaqo sax maxaa ka rabtaa ilma adeer baa tiin baa lagu leeyahay war this abuser is not ilma adeer ma noqdo abuser ma fahmta labadiina laba guri kala duwan ku soo korteen laba xaalad ku soo korteen he can have his own agenda soo lahaan kara adigana waxa lahaan karta your own agendas qasab maaha qof kasta oo isku reeraba inay isku fikriyin qasab maaha aniga Yuusuf shakhsi ahaan uma necbi laakiin waxaan marnaba aanan ilaa weynin 10 buug haday noqoto aan ka qoray waxa soo naga iigalay ama aan anigu cadaalad loo dib aanu dacwada ama iska dhaaf ma fahmtay qof 12 qofood oo cadaalad fali way mid meel ku abuse dan nimankan kale leeyihiin nimanka ma aad ugu ma fogaan karaynin raga meesha ka shaqeey laakiin aniga waxaan ahaa waan nugla taasna waa qayb kamid ah nimanka Soomaalida ah ee meelaha sare madaxda ka soo gabdhaha kala walaalahooda u galaan ya marka Yuusuf ima shukaansan aan hotel aadna ima dhin bas reality al raba ma ogtahay anigu damaciga ma gelin maxaa kale ugu abuse karaa wuxuu kugu abuse kartida wuxuu kugu abuse fikir wanaaga wuxuu kugu abuse waa ninka barnaamijka adigu soo jeesato inta diido 3 bilood kadib soo kala baxay oo dhahay ana sameeyay ما قرأت مركز إن لبيت هم قفات لبيت هم قفات إسكو هاي واسو سماله وحينا سو سماله وحينا وسير كل واحد كسو بحواي ممكن سو شقة تقبل السكيري أنا مدانا يقول كوالال كينا نكفق هذا but he was so bad وها حين جبي بس هذا دوت وبد كنا ما أقام قفك إيش بدل الكرا maxaad caqabad maxaan leeyahay maxaad waaye aragnimo nolosha labadooda dhibaato badan baa ka soo martay tii nolosha guurka iyo tii shaqadaba maxay tahay labadaba ka daawoobe waxyaabaha ma ka dhaxashay wad ka daawoodo ma sha Allah waad iga qurux badan hor fadhiya labadaba ka daawoobe fiiri laakiin waxa la yiri maxaad waaye aragnimada ka dhaxashay ana ma ka dhaxla waxay tahay maanta umada kaga duwan waaye aragnimada ka dhaxla waxay tahay iska sabarta Soomaalida marmar inay kala tahay ninku abuse-ay sax oo aad marka dambe ku gaarsiina gabdho badan aniga xaaladda soo mar ku jira ku gaarsiina inaad buubi isku tuurto oo la leeyahay iska sabar hadana joog hadaa aragtaan ninku inuunan dhaqan lahayn iska taga sida ilaahay guurka uu abuuro furiinka uu abuuray furiinka adu howta naagoonin laakiin hadaa aragto inay nafsadaada ay taaganto sida aniga ay noqoto kale iska tag taas waa mid shaqada ku soo hartay ilaahay inuu irsaaqada bixiyo waxaan ka faa'iido xawaay Yuusuf wali markuu dadka u sheekay wuxuu ka dhigi jiray shaqo saan camal maad hele wax shaqo saan camal wallah shaqada BBC sidoo kale lama helo asaa ku dhahaayada wuxuu rabaa inuu ku sii abuse oo joogto ani marka waxaan dhigi jiray aboobe irsaaqada ilaaha bixiyo saa u tagana ani asama wada hadlin hadalkiisana uma xiiso qabo xumaan gooni uma qabo laakiin hadalkiisa uma xiiso qabo wali miyaad saad shaqada uga tagtay dib u aragtay ma la hadlaan haddaad caawa arki lahayd maxaad ku odhan lahayd حدي أبي يستلن ده لاي بلا ياكو أركت واي يبولي كريسان ديلا حتى لو كاسا دور كاغا مروي ساي جوغني مدي كرتيده خوغا اديغا ليدو اديغو كوغو جير هدا اديغو ايغو ماغاي ساده ماغي لهين حتى لفتركيدا هدا ku daawanayo fariinta gudbinaysa waa inta leeno daawado waa rabaa anaaba ku maxsuumiyo oo Twitter ku diraaye sabab adig midan qarinayn mud Twitter ku jira ninka isku la jirna anaaba maxsuumiyo u diraaye linkiga bash wax la qarina ma leh
meesha fiiri meeshaan anaga ma joogno wadankii hebelaa xagga kaa xoog badan adigu qabiil hebelaa kaa weyna gambo meeshaan ma aha meeshaan waxa waaye ingiriiska lama jeclo haddii aad qabiil hebel tahay midka laan dheerka aad sheegaya Soomaalidu laan iyo balaaya sheegtay kan laanka gaaban oo sheegaysa kan laanka dhex waxaadaba aad tahay halkan ingiriis la yiraahdo lama kala jeclo sharciga dadka kala haga ma fahamto waana ku tala galay aan maalinna kortiyan tagi doonaa anu Yusuf waa ka da'yaray waa ka yaray asaga wax badan aan ka yaray asagana markuu shaqada ka tagay beenshinkiisa mushaarkiisa loo cadeey oo 62000 la siiyay. How much do you think aniga iigu dhiman BBC marka ilaa aniga waa ka yaraa asagay aniga iiga weyn hadii 62000 oo qaata aniga maxaa u malaynay ya ana qof yar oo wali intaas soo sano uga dhiman yahay pension markaan shaqo dartiis uga tagay wax la isku cafiyaa maaha wax la kala gamadana maaha laakiin waxaan sugayaa ugeedaan suga bas caruran korsanooya ma raba haddana inaan maaragtay buuq kala gala ma rabo waa inaan ilmihii koreen qaar guursadeen jaamacadihii ka baxeen qaar hadda anaa ugu yar guriga ba anaa ugu yar haddeeroo kaleeto iska dacwo kara laakiin haddana hadda ma dacwoonaya hadda waxbarashadaan dhamaysanaa horta waxbarashada qabiiciya aan dhamaysanaa ma fahamta waxbarashadaan dhamaysanaa waxa la dacwoonaya Yusuf ma aha laakiin waxa waa xaqa iga maqan aniga sax xaqayga inaan helo waa ilaa hadda pensionka BBC aan dhiiban jiro waa ay haysaa waa la xiriiraa BBC maadaama company owner aan ahay on company leeyahay waxa rabaa soo wareegsada pensionkayga oo sida walaalahay oo kale qaarkood ay uga dhumo kal pensionka oo iiga dhumin fantastic oo soo wareegsada company-ga soo wareegsada company kale u dhiibto waatay Aamino BBC su'aasha ugu dambaysan ka weydiinayo waxaad ahayd xidigtii gabdhaha waliba gabadhii ugu caansanayd loogu jeclaa xilliga BBC ka hadlaysay codkeeduna ka ugu horeeya la dareemo dad badan baa kugu xidhnaayo dhageysanay khaasatan barnaamijkaada Ilaahu naxariistay cawke oo aan oran karaa aniga la fahaantayduba ma baan bilaabeenba barnaamij tahniyad iyo salaamaha haddana idinkeena ku xidhnaan jirin oo waxaad ahaydeen barnaamij tahniyad la sameeyo Aamina ya cawke dadkii jeclaysiiyay dadkii haddaba sidaa kugu xidhnaaya Aaminadan dhageysta iyo Aaminadan kalaad maanta dadka u soo bandhigtay maxaad u malaynaysaa farqi intee leeg baa u dhaxeeya si dadku maanta maxay horta horta dadka fikirkooda aniga qofku waxa marka adigu hadasho kadib qof bas uu qaadana it doesn't matter say u qaataan laakiin waxa Ilaahay ugu og yahay oo rasuulkiisa Maxamed iyo Allah iyo rasuul ugu dhaaranaya in ay qof islaam ahaan ahay inaanan kala been aan ku darin hadalka waxa weeye aaminada hadda aan ahay aaminadii aan ahaa dadkii arkeen waxba iska bedelayaan si fiicnaata ma aha inaan intaas halkan waxaan awoodinaa halkan soo fariisto oo aase public sheekooyin uga sheegano cidna caayin cidna ku xadgudbin laakiin aniga my story side every qof kasta noloshiisa ay dahab tahay ma jirto qof walba wuxuu ku fadhiyaa intaasoo gooryaana hadduu ka kaco bas tahay intaasoo halaqaya hadduu ka kaco ay bas tahay ma ogtahay asoo kor u raacaya marka aniga noloshayda marka aan percentage sameeyo waxaa aaminsanahay 90% inay nolol fiican ku noolaa oo guuleystay absolutely يا أو قف فنانة أو قف محيطه وح كستا أو قف حاجة هور صومرته وحبرشة صومرته إلا حتى ربط إنه وحبرشة هذا نرشة هذا لستو BBC سو شقيسة هذا كمبني أونر هو أيضا وح إلى ذا كشقينسة أنا I'm proud of myself نفترض وكه وينه جبر والبنو حكون يرجلنا حفصني أبيوس كستا ولا جوينا ما كان ولا لا وحكى له وما قبل حمان وما قبل أنا حدا عمني ما لقوا قبل هذا ما يعمل قبل هرت سوشيال ميديا هرت ما شاء ما سوشيال ميديا مركو ما شاء ما هذا مي مقالة لا اسكو فرم dadku berigi hor qaarka miyiga joogana miyiga joogi jireen qaarka magaalada degan magaalada joogi jireen la isma arki jireen markii dambe dagaaladu dhacay waa la isdhex galay deetana mar sida hadaaya kaaga sheekaynayaba adiga oo yaabana nafla carara waxaad u guursan kii ku agtaagnaa mana taqaanid wax la wuxuu yahay ma garanaysid marka sidaas si lamida social media hina loogu jiraa hadda noqtay dadkii wada digital ah oo dhinaca technology ka faa'iideysanaya waay horta aniga hadda la ma qabo illa qabana qasab maaha hadaan doonan la qabi maayo hadaan nin wanaagsan helana aniga nin wanaagsan aragtay naga dhaxayso waa garanaya ninka wanaagsan ma garatay laakiin hadda waxaan guur ku heshinay nin Soomaali ah Soomaalina ahay dadku soo rabaan ha u qaataan absolutely weedanta Soomaalina aan ahay hadii alla ii calfano ninkaas waa isguursan doona insha Allah jaamacadeeda yarna iska dhigan doona because waxaan ka arkay gentleman-nimo saqajaannimo ma ka arkin waxaan ka arkay gentleman-nimo
ninkii oonan bahayn baan hees sameeyey marka awarku siiyaa oo si diyaar garooba magta oo si almintaya waxa loo si almintaya waxaan yiri naftaydu waa fariid kala bay rabtaa jacaylkuna waa fadhiid firfircoonidii laga dilo tallaabada kala foge ayaan kula faqahaye markaan muddo dheer fadhiyay caashaqa fooq dheer ku xidhay shalay baan ka soo furo is iri wax furdaami badan naqaloo foofa iyo si aan ula doono fiix ayaan damicii fidsho rajaan wali filanaya ma rajo dhigaya si kastoo kalmaad waxaa farxad geliya dooq markuu helo ruux ku filan naftiisana furan kare haddaad tahay reer ku filane firaashkii waan dhige dhankaaga fadhiiso guddoon wacan laabta furan hadda waa hal beej laba beej waa heesta markii ninkii oo rasmi la soo helo because ilaa nikaax ka dhaco ma haysid magta wala ka maqanya markii wax kasta dhamaadaan heestii oo rasmi ah loo dhigaa damka meel garanayna ninkaaga ina daawanayaan war ma haynin qofka dambe guursanaysa xataa hees isku sii aliftay idoon haynina ahaaniga wax kalena ma ahane wax kasta diyaar garoob u baahan yahay xitaa ninka wax kasta loo diyaar garoobaya waati aamin aad baad u mahadsantay maran ooyiye maran qoslaba alla cimriga caafimaadka ku dheereeyo diifka iska tirnay maran qoslaba aad iyo aad baad u mahadsantahay Bishaara Talk Show intaasaan kusoo gabagabaynaynaa gabaynta ka hor marti sharaftii aad ka cusleydayna la joogtay ee fanaaniintii hooyooyinkii fanku halkan caawa ku sugnaa saxaafadii asxaab fara badan oo aamin marka la wada mahadsantahay cimriga caafimaadka Allah ku raajo oo halkan nagula sugnaaya dhamaantood su'aal ay qabaan aan doonayaa inay mid noogu soo kooban mahadsanay aamina weydiiyaan ka horse waxaan u mahadnaqayaa barnaamijka maadaama su'aashaas qura ku soo xiri doono dhamaanba qudhaydi waa kari waayso maaha su'aalaha qura maadaama aan ku soo xirayno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid kasta oo barnaamijkan suurtagelintiisa ka qayb qaadatay oo ay ugu horeeyaan maamooyinka fanka waa Khadiija Qargaabo waa Faynus Sheekh Daahir Amaara Cali Shoobare dhamaantood asxaabta halkan ku wada sugan inta su'aalahana weydiin doonto weeyaane walaashay suxufiyada kameramaanada waa Faisa Amir thank you very much baan leeyahay fanaanada qaaliga Raxiima Mahdi Abuukar iyo walaashay Amaal Gulad Amaal Islawadka lagu taqaanay igaba caansane waa tahay qaybta farsamada ayaan leeyahay agaasime Dalmar oo la'aantii aanu barnaamijkan qabsoomeen iyo gacanta lagu ciilbaxo Cabdiraxmaan Soomaali Daa'us yare ayaa sidoo kale Cabdiraxmaan Daa'us ayaan u mahad celinayaa ugu dambayna walaalkay oo ahayd maskaxdii ugu horeysay ee barnaamijkan igala dambeysay ayaan rabaa inaan aad iyo aad ugu mahad celiyo waa DJ Subeer aad iyo aad baad u mahadsantahay baan ku leeyahay meel kasta joogtidba aad iyo aad baan ku salaamaya barnaamijkan haddii aad u baahan tahay hadaba ama ahaw shakhsi bulshada Soomaalida magac ku leh ama ahawba shacabka kale oo u baahan in barnaamijkan xaqiiqada dhabtee nolosha Bishaara Talk Show realka inuu ka soo qayb galo xagga hoose ayaad ka arki kartaa halkaad nagala soo xiriirayso haday tahay email Facebook iyo Snapchat intaba saasaan inoo balana mar kale su'aalaha ayaynu u galaynaa wad mahadsantiin meel kasta naga daawanaysanba aamina walaalo waa ku dhageysanayay goobjoog baan oo ahaa maalinkan maanta qisadaada aad ka soo sheekaysay dheer noloshaada life-kaagii laba su'aalood yar baan qabaa inaan ku weydiiyo raalli ahaantaadana adiga raalli tahayna waan ku weydiisanayaa waxa weeyaan labadaas su'aalood oo iga soo dhex baxay barnaamijkaaga midna aan mar hore qabay midna barnaamijka hadda igu beertay taas mid waxay tahay waxaad ahayd inaan wadanayada gambacadna u xidhatay wadanka oo weerka aynu oran jiray dhaqan u lahayn marka maalinkan maanta weer marka waxaas qofkaas wuxuu jeclaa waayo inuu weer xidho weerkii baryahan kuguma arko ma waxaad ka heshay isbedelka oo ka doonaysay baad heshay oo dabadeedna aad weerka u xidhatay maxaa weerkii aad gaadhay la wadaniyad baad ahayd weer xidhato tilaa wadankaaga weerkaas aan xidhanayaa weerkii adiga kiiba kula hagaagay mise si kale ayaad maalinkan maanta weerkii u furtay mid waa taa midna waxa weeyaan barnaamijkaaga waxaan ka dhex arkay yacni in guurkii dhowr jeer kaa xumaaday
markii dambena ilaa iyo aabaha aad ka dhaxashay inaad nin dambe oo aanad aaminin oo aaminkii kaa dhintay oo ayba gartaa tahay taa waxaa loo qaataa in markaas maduu kaa dhintay aaminkii inaad rag oo dhan ka joogto kama aad joogin haddana mar labaad engage tahay inaad guursato oo aad tidhi nin dambe inaanan aaminin ma inaad khiyaanaysaad rabtaa ninkaad aamin marka guursanayso waay haddaad ba tidhi dee aaminkii wayga dhintay ninka miyaad khiyaanaynaysaa dee aniga sidaa dee feeri lama aha marka labadaas su-aalood baan walaashay qabaa aamina waxaan ku idhi aamina barnaamijkaagii si fiican baan u dhageysanaynay dhibaatadii ku soo martay iyo faraxii ku soo maray iyo korintaadii mid walba waanu dhageysanaynay marka anigu hadda su-aal waxii oo dhanba waaba la socdaa wixii dhacay iyo say u dhaceen iyo sida ay ahayd waxaanse ilaahay kaaga rajaynayaa maadaama guurar badan kaa xumaadeen kan aad hadda heesta u tirinaysa inuu ilaahay mid fiicanoo kii aad ku degi lahaydeen noloshaada inta ka dhiman aad isla dhammaysan lahaydeen in ilaahay kaaga dhigo anigu intaasaan ku leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم آمين horta aad baan ugu faraxsanahay inaan maxayday aan dhageysto noloshaadii ilaa bilow ilaa dhamaad waxaan ku rajeynayaa nolol fiican oo aad ku faraxdo ku degto insha Allah waxaan aad iyo aad anigu uga helay markaad leedahay yacni gabdho badan oo Soomaaliyeed oo waxa jira dhib ku haysta iyagana oo haysto waxaan caaw rajeynayaa in gabdhahaas ay u tahay yacni wax ay baran doonaan wax barasho ka baran doonaan especially dhinaca depressionka waxaan haysanaa hooyooyin badan oo uur leh oo markay uurka leeyihiin ku dhaco depression waana u jilicsan yihiin dumarku markay uurka leeyihiin inay ku dhaco depressionka iyo markay umusha yihiinba soo caaw waxaan rajeynayaa inay daawanayaan dad badan oo yacni iyagana ay qusayso arrintaasi oo wax ku qaadan doona waxaana tahay qof adag ka soo gudubtay xaalado badan ilaahayna waxaan ka rajeynayaa inta dambe damacsan tahayna inuu kula garab galo soo kaas walaal soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم آمنة عاوة هرت سفي عم بنشك هذا أقول دقيستي أنا بسؤال كويدين معي لكن حوجات تلاقه ما دام إلهي كو جرجاري وأولادي نكو كرتي ونلوش هذه ما أنت ملفي عن أي تاجنته حدوب إلهي كاجا جرجاري بريج كي أنت سكتوري لهيت الحمد لله iska cafi qolada maxay ahayd caloosh ma aragtay xumaanta idin dhaxmartay ilaahay qofku u gargaaro waxa waa inuu hore u socdaa inaadan gadaal fiirinin weeldan waan ku faraxsanahay ma sha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu dhamaantiin horta waa idin salaamay inta barnaamijka aan fadhisay waxaan horta ku hambalyeeynayaa walaashay Bishaaro Baandhe oo barnaamij aan caadi ahaan caawa meesha nagu casuuntay aad waxaan ku leeyahay hambalyo Bishaaro aniga hal su'aal aan qabaa Aamina waxaa tiri dhibaatooyin badan aan la isoo gaarsiiyay dhinaca guriga iyo dhinaca BBC Yuusuf Garaad aad ugu cabanaysay waxaan isleeyahay horta Yuusuf Garaad waa ku dhibaateeyay laakiin qofka markuu ku dhibaateeyay ina laba option ku banaan ina iska cafisid mase ina dacweysid maxaa waaga oo markuu ku dhibaateynay dacwo u furo weysay waagaas hadii oo aad ka cabsanaysay mase asleed shaqadaada ama shaqalaan ay kugu dhacdaa hadda jaanis ma u heli kartaa hadda maxaa adiga ku qorsheysan ina dacweysid oo dacwo aad ku furtid mase ina iska cafisid mustaqbalka intaasaan ugu baxay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu السلام عليكم آمنة آدي أنا أقول فرح سنة ما شاء الله برنامج كان أنا كسو قيب قاله بشهرنا آدي أنا أقول هم بلينا يا مركا سؤال شيء وا هرتا سؤال بدنا قباب بس ما أقان مدن كويديو وحان دقيسنا أي شيء كذا آدي وإيسو جيدت وان كله أوينو وان كله
qosolne maasha allah. Aniga ayaa ka shaqeeyo contact center meesha markii maxkamadda ay kuu soo dirto maxaa la dhahaa court orderka aad ilmaha u geynayso. Marka meesha aan ka shaqeeyo Soomaalidu ma ku badnaa because xuquuqdooda gabdhaha ma oga, ma aha inuu ninku ku dacweeyo, adba waa dacweyn kartaa. Marka su'aalna ma aha waxaa maxaad advice ahaan u siin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed ee yaryar ee situationadaada oo kale iyo kuwa kasii daran ku jiraan waxa ay samayn karaan, meesha ay ka bilaabi karaan si ay xuquuqdooda u helaan. waa tahay haddaba su-aalahaas oo dhan waad maqlaysay, waxaan rabaa inaad hal mar jawaabtooda haye isu wada raaci kale nowdna waad qorataan u malaynaya. Okay, su-aasha waa aad i weydiisay Khadiija ceeri gaabo walaashay macaan marna habaryartay yaa ilaa tiyaatarkii national tiyaatarkii maaragtay hantida qaran ah, dadka hantida qaranka u nool ka mid ah. waxaad ku tiri maxaad u dhigtay asaydii? habaryar macaan maan dhigin asayda, anigaba waa iminka waa aniga garbasaar cad hagoogan. horta asaydu waxay leedahay ujeedo aan u qaatay oo ahayd in aan dadka inaan habaryar tusiyo inay qof keligii mudaaharaadi karo isagoon xabad ridin, isagoon rasaas ridin, qofku inuu mudaaharaadi karo oo waxyaabaha qaarkood qofku ka dagaalami karo. asayda marka aan qaadayana xaalad adaga wadanku ku jiray. hadda xaaladii way ka yara si hadaad aragtana way ka yara adagta, si hadaad aragto way ka yara fududahay oo waxbaa isbedelay. lama rabo negative kaliya lama noqdo mar walba maogtahay waxaas ma jiraan, wax fiican ma jiraan kaliya lama dhaho. wax badanna waa la qabto, wax badanna waa dhiman yihiin. asaydu waa symbol ama calaamad nabadeed waaye because waxaan doortay midabka cadaanka ah. waxay jirsatay 1 bishan August, waxay jirsatay asaydaasi 19 sano. waxay la socotaa xilliga aniga waqtiga imid sanadkii 20aad bay iyaduna ku jirtaa asaydii, aniguna wadankan joogistiisa aan ku jiraa. ma dhigin haddii ay mar badan inaan dhiga aan rabay oon u dhigo rabay maadaama meel macshara ku qaaday luuqa intaan gala maba dhigi karaba waa inaan macshar kale ku dhigo. asayduna ma ahayn asay oo nin dhintay nin go-ay loo qaaday, wadan go-ay ayaa loo qaaday. marka wadankiina wuu soo nafta faleebaa ku suran oo nafti maaragta waa kusoo yara noqonaysaa. sakaraadkii faraha badnaa wadanka waa ka baxay, xumadii faraha badnaydna way dayday. Soomaali inay isu timaadaan weligaa jeclaan jiray, iminka waaba ka sabraba inaan isu imaaneyn baan u qaatay. hase ahaatee anyway dadka oo qofba gobolkii ku noolya uu nabad ku noolaada aniga asaydeeda jawaab ka noqonaysaa. dad baa u haysanaa xamar kaliya u xidhay, xamar kaliya uma xirane waxaan u xirtay meel kasta oo dhul Soomaaliya degan tahay ayaan u xirtay. dad fara badan way og yihiin inaan aad u taageerayay halgankii gobonimo doonka oo Soomaali galbeed. ani Soomaali galbeed aan dhahaa kil shanaad waxaas ma dhaho. anu cid walba oo wanaag samaysa meesha doonta hata ayaa isgarab taagaya, cid walba oo samaha iyo maaragtay ka talisa isgarab taagaya. watan wareysigayga ku sheegay adeerkay Faysal Cali Waraabe waan ku faraxsanahay in Somaliland oo kaleeto ay noqoto dad walaalahay oo dhiig iyo dhuruq igu jiro ay degan yihiin meel nabad ah oo wanaag ka taliyaan, wanaag iyo maaragtay sumcadkooda noolaadaan. runtii waan jecelahay. anigu ololaha aan xataa dhinacan koonfurta anigu aan ka dhashay aan ka wado waxaa ku jirta inaan ku hamiyayo in gabdho hogaamiya dhaqameedyaha aan dooran doono. gabdhahaasna waxaan doonayaa inay tababar soo siiya odayada Somaliland, ma doonayo oday kale inay soo siiyaan, igama aha waxaaga, laakiin reality-ga sida aan jecelahay waay. waxaan rabaa ugaas suldaan wax boqor wax alla iyo wixii Somaliland ay qabaan inaan la hadlo, baaq u dirsado, ciladaan baaq la dhiira inaan u dirsado yiraahdo annagu waan ku fayl garownay odayadii koonfurta ee hogaamiye dhaqameedyada ahaa. hadda kadib kuma kalsoonaanayno, marka hablaha noo tababara oo dhaqanka iyo sida loo xeeleeyo waa iga dhab, ilaahay baan ku dhaartay waa iga dhab. hadday taasi ii suura gasho waana codsanayaa walaalaha Somaliland inay i taageeraan oo maaragtay aan ka dhaadhacsiiyo, kuwana aan ka dhaadhacsiiyo walaalkaa wuxuu kaaga fiican yahay waa laga bartaa, waana looga dambeeyaa. walaalo ibar baana la yiraahdaa oo iishag baa la yiraahdaa, problem malaha. marka habar yar asaydaas ma aanan dhigin Khadiijo, weli waan sidaa. haddaan dhigayna macshar baan ku dhigayaa, waana jecelahay laakiin waan iska yareeyo oo
shalmadihii kale garbasaaradii kale ba iska buux dhaaf wax xiranaya malaha anigana kalaradii aan u xiisa bini aadan aan ahay human aan ahay mogtahay midda kale nin baan doonaya inaan guursado nin wanaagsan inaan helo mid walbaba wuxuu ka oranaya asaydi horta ma dhigtay waxay u maleeyaan haddaa ayagoo asayda aan sido aan wax ku darsado dhimanayaan mogtahay marka saana taa iigu dhicin oo dee hasaawihii wixiina iigu socdaan ayaan iska yareeye ma dhigta war ma dhigina waan iska yareeye bal sheekada noo wado marka hore saas waa asayda macshar baa lagu qaaday meel macsharaha lagu qaaday meel macsharaha lagu dhigaya meel alla iyo meeshay noqoto mana aanan dhigan su-aasha labaad dhaxalkii aabbahaa bay tiri abaya ay weydiisay dhaxal horta dhaxal ma ahayna wuxuu ahaa dardaaran aabbo ayuu ahaa oo aan ku xasuusto aabbo xilligaas uu ila dardaarmayay aniga ayuu isiinayay motivation wuxuu isiinayay in dhiirigelin buu iiga dhigayay waana runtiisoo aabahay beenaale ma ahayn aabahay waana rumaystay hadalkiisa la haddana waa aaminsanahay laakiin xabiibti walaal macaan anigu nin baan guursanaya un baan eri mooye ma ana oran nin baan aaminaya that's good one anaan aaminin baa ninka iskala joogayaa de wax laga weynaadaa jira mota in qofka la israacsiyo la is aaminsiyo nebi soo daahire aad u qaadato adiguna hadhowta uu maarata burar kula dhaco waxaa safeer maaha marka sa inay nolosheeda dhibaato dambe ugu dhicin dee anaan aaminin ba aniga walaalka isguursanayna waana iska wada joogayna waana iska wada haddaan aaminaadi jirin miyaan la odhan karin waad khiyaamaynaysaa marka maya aniga ma khiyaamaynayo laakiin anigu asaga ma aaminayo macnaha 100% guarantee ma siinayo trust ma siinayo aniga oon asaga aaminin baan la noolaan karaa waxaa awoodaa inaan la noolaado hadda cilmiga nafsigana waan bartay haddana jaamacadda aan ku noqonayo dhamaystanayna waa taa inkastoo hadaayaka abaaya aanan ba u sheeginba waxyaabaha aniga aan psychologiga u bartaa waxaaba ka mid ah kol haddaan anigu meel yaab le ka soo noqday oon marna aan rabay inaan isdilo mar kalena aan maaragtay problem badan igu dhacay inaan anigu horta isfahmo maskaxda bini aadamka say u shaqayso tiina alxamdulilaahi waa ku guulaystay haddana waa la shaqeeyaa dadka mental health problemka qabo because qofka takhtarka iska soo bartaanaaba u dhaamaba ilaa anigu waa soo maree ya depression iyo anxiety iskula kay dhacay aniga marka inaan qofkii realityga baan u sheegi karaa marka abaya macaan ma qiyaamaynayo aabahay dhexalkiisina waa dhexalkiisi waana dardaaranka ugu wanaagsan oon aabbo kusoo xasuusto laakiin ninkan walaalkay oo dambe haddii calaf isugu kaayo daro waxaan guursanaya anoon 100% aaminin sideedana ragga iminka markaan yaraa waxaan ka dayi jiray inuu perfect yahay meel walba ka hagaagsan yahay meel walba dhac ka yahay meel bakan ka yahay hadda ma ka dayo hadda 100% ninka haddaan fahmi karo 100% ka kale 25 waxa waaye waa ugu sabraya 25 waa ismoogmoogaysiinaya waxay ku percentage kaas bay u qaybsameen marka taasina waa taas haya su-aasha kale waxaa kusoo weydiisay suxufiyad Faisa Amir waxay ku tiri xilligii aad wali wadan baad joogtay sharci ka jira xilligii Yusuf Garaad waxaan dhibaato ka tabanaysay maxaad u dacweyn weyday ama hadda xilligana okay xilligaas waxaa u dacweyn waayay BBC markaan ka tagay aniga horta qof walbana waa ogyahay macal Faisa su-aasha weydiisay this job markaa ka tagto the next day you need another job ma jirto lacag meel kuu taalla oo aad iska soo xaabsanayso caruuraha iyo reeraha ku maamulanayso ma jirto marka anigu mar alla markaan ka tagay horaan university uga shaqeeyay waa inaan marka anigu horta noloshayda soo maareeyo waa inaan aniga emotionalka faraha badan loo ahaa ay iga dhamaato qof emotional ma dacweyn karo waa inaan aniga baare xuquuqahayga iyo tallaabooyinkan u marayo lawyer noocee ayaan kiraysanaya waxaas waa igu fogaata marka hadda laakiin meel fiican ay joogtaa meel fiican ayna ii maraysaa ayna wanaagsan tahay buugga aan qorayaa markhaati ah evidence that is the book markhaatiyaasha dhan asay ku qoran yihiin oo Soomaali iyo Soomaali la'aana anigu qodaan dad dacweynaya maaha Yusuf Garaad laakiin waxa waaye abuse-ki aniga la abuse Yusuf oo shakhsi uma dacweynay wax uma qabo walaalkay caawado ima qalahay wax xumaana oo anaga asaga u qaba male laakiin aniga oo qof yar ayaan ka tagay shaqada ya waxa laga joogaa waxaan ka tagay 2000 iyo waxaan ka tagay maya 2011 kan ka tagay aniga 12 sano shaqeynaa 2000 aan bilaab 2011 kan waa ka tagay haddana waxa lagu jiraa 2019 sanadkii 20aadna wuxuu igu dhashay Europe waa long time waay and still pension-kayga ma dhawa
isku dhufsada bal idinku waraysigan ku sheegay xilligan dhasho isku dhufsado kala gooya meeshikayga ma dhaho aniga dumar baan ahay wadankan waxaa lagu howlgabay 65 sano 65 sano hadda ma jiro saas la ajligeed maadaama 65 sano aanan jirin dhowr sano iga dhiman tahay waxaan rabaa nolosheeda inaan saana u raaxaysto nin haddaan guursanayn aan guursado oo intaan hadhowti maarata markay carruurtu kala dareeraan ila carruurtu waa wada weynaadeen meeshaan ugu yaray aan hadhow fridjka iyo lama hadlayo moogta qof aad la hadlaan rabay fridjka armaajada kabarka iyo sariirta lama hadlaye qof aan la hadlo la sheekaysto af garanaya ayaa rabaaye inaan maarata anu horta Ismaaciil oo istigaano dhinac walba ka degan ba hadaa wax galayeen oo duulaan galayeen ana dhigayga udbahayga wata ee oday dhahay sax xaaskayga waa laga gardarnaa aan loo baahan yahay ma aan qof single mother ah oo shalan shaqada ka tagtay idoo single mama haddana idoo single mama dacweynayso waxaas af ma aha su-aashaasna halkaas kaga jawaaba ta ugu dambaysa haddaan ku xasuusiyo Faysa Amir absolutely su-aasha ugu dambaysa haddaan ku xasuusiyo Raxiime Mahdi Bahid fanaanadeena waxay ku tiri maxaad talo siin leed hablaha dhibaatadaadaas oo kale soo marayaan wali sidaadoo kale nolol farxad leh aan gelin aan ka bixin ama hadda ku sugan horta waan hubaa iminkana maadaama aan ka shaqeeyo dhinacan mental healthga gabdhaha Soomaalida ah oo waliba language barrier-ka uu haayo oo ay figurisiga si fiican ugu hadla aqoon ama xilliga aan cabsanayo aniga oo kale ku jira oo aan caawiyo oo mental health maxay advocate aan u ahay waan kala hadlaa mar walba qaar xaasas qaaran xaasasan qaar single mom qaar wax ah in gabdhaha hadda dhibka ku jira waxaan leeyahay walaalayaal waxay ogaataan dhibaatada laguma dhinto qaarkeeda badankeeda waa lagu dhuubtaa ya anigu barigaas waxaanoo laba darbiye waa xayeesiyaan noqday moogta hilibka dhan baa iga dhacay marka waxaan soo xasuustaa kulliyadda jaalasiyaad habla habareyaasha ku jiri jiran marmar u tagi jiro dhulka waxaa ku qoran dhiman maysid waad soo dhuuban halkan haddaad soo gasho naftu kaa bixi mayso waa xayeesiyaad soo noqonayso lagu raacdayno ay moogtahay askarnimadu marka hablo waxaan idin leeyahay dhiman maysid waad soo dhuubane laakiin waxaad ogaataan waxaad isku daydaan inaad dhibka ka baxdaan waxaa maskaxdiina ka fikirtaan adigu wax xumaynin laakiin adigu dhibaatadan qofka ku gaarsiiyey waad ka badbaado shartiisa وانا واجب دينية وحوي أدو أنا إثبات بادسو دينت إسلام كوي أقشة سومالي ده واحد نقول ضل يسوع هلا صبر هلا صبر إلا اللي قاعد له معها معناه وحوي أنت أود الصبر أنت أود أقيل سماء لكن الصبر كمركو هكو قدام بيجاده أدو أركتو إن عرفت هذا اللومينو يسوع بس أنا أما mental institution أنا قلي لها هدانا نلوش إذا وحكي بدري لهين أما محيط عرفتنا social قاعدين لها المهيجة أنكر صدنا ما أنكر صدين المهيجة أنكر صدنا ما أنا أنكر صدين هدي أنا حالة دس أنا كبحي لهين وان هو بقول كيف بقول حالة دي قرية إيجا هي ستة تيش شقدها بإنك استو وقت كلفوق يقول قاعدتي لا هاي سياد المهيجة وبدبال صرت نفتح بدبال سا المهيجة وبدبال بقول مركه شرعي ما هي سنبه وحن كو شرعي رسمي ما يساعدان شقدها كتوه ولا أنا ولا يعلني مركه وحن نقطنا أنا نلاش برايورتي وكلا سمست هبلو نلاش وكلا سمست مدنان نلاش إن بابور قارفي عن وضتين قرفي عن كجرت مركه قر مدنان معها mararka qaar xataa inaad adigu maryo xirato dadka cawradaada ka asturtaa mudnaana laakiin inaad diraca ugu dambeeya xirato mudnaan maaha mudnaan waxa waaye caruurtu inaad ka dayacmin adiguna nafsadaada inaad u dayacmin oo isbitaalka waalida lagu geyn mental institution lagu geyn mudnaantu waa taa marka taas ku dadaal si alla iyo wadada u mari kartana u mar cidna ha xumaan cidna ha aqoon laakiin isbadbaadi xaq waxaad u leedahay inaad isbadbaadiso iyo inay caawinaad raadsadaan mental health ma leh talaal hablaw si fiican ii dhageysta ma cudurada ku dhaca maskaxda talaal ma leh waana 100% Soomaaliya iyo wadanka kuwa joogana haddaad aragtaan un qof qaawane ee maaragtay 12 gasac qoorta ugu xiranto waa waalan yahay juniyo qabaa la dhahay laga daba saxbinaay waliw taa kaliya 100 nooc kala jirta depression ajir anxiety psychosis ajir adduunyo dhan ajir waana ku badan yahay halkan dadka wadanka jooga waxaan aragnaa ayagoo silic maaragtay silsilado lagu xiro maray telef noqdeen marka please iska gaara wuxuu ka bilowdaa mental health problem wuxuu ka bilowdaa hurdo la'aan fara badan isku ka daba gasha wuxuu ka bilowdaa stress aniga youtube-kayga waan geliyay ana sharxay bad stress iyo good stress maxay ahayd toonay caawinaad raadsada dhakhtarka ha ka qaloonina
wadankaagi ma aha haddii aadan dhakhtarka raadsan oodan caawinaad tagin oodan dawo raadsan ilmaha waa lagaa qaadanaa adigana cirbadaa lagugu dura mental institutional lagu geyna it's not really good midda kale waa isqarinaynaa ma hadlayna maahane kala barkeen baa saas xanuunadaas wada qaba oo kaniinka hoosta ka wada qaata dadka kama hadlaya qof caqli leh oo mustaqbalkiisa raba hadlaya marka hablow iyo inamow nimanka iyo dumarkaba labadaba cudurka waa ku dhaca waxaan idin leeyahay please isbadbaadiya markaan idin leeyahay naagiina soo furfura kama wado nimankiina area kama wado laakiin waxaan ka wadaa naftiina iyo nafta caruurtiina ku dadaala hadba xaaladu meeshay ku bado sida ugu fiican isku badbaadi and the pressure iyo anxiety-na makaaga tagaaya aamusnaan waa isqariha markaas ka baxda asaa iska baxaay hergab ma ah it's not flu mental health is not flu hergabka markaa laba beri iska kaystood maraq kulul iyo cabto waa baxa mental health ma baxaayo waxaa jira mental health laga qaada shaqada laga qaadaa jira waxaa laga qaadaa jira astaamiis iyo wixiisa aniga qof dadka wax kasta aniga waa aqaanaa idin ma dhahay laakiin howlahaas waa ka shaqeeya dadka follow garaynayo way ka faa'iideysan karaan maraan english ku hadlayaa jira xataa dadka ingiriisiga oo af soomaaliga dhibaya maaragtay ka faa'iideysan karaan kole dabcan youtube channelkaaga iyo facebookaaga xagga hoosaan ugu qoraynaa oo ay si toos ay kugu soo xidhnaan doonaan waa aamina weheliye youtube-ka ka kalena waa aamina muuse weheliye oo laba bog oo facebook ah labadaba kusoo sheer garaya wallaahi iyagoo cajaladoo duuban xataa oo aan ka hadlayo oo dad maxay ahaytoonay lecture ku bixinayo oo fara badan ku jiro marka ilma adeera qolaan qabnaa qol ayaa jira oo UK dad gabdhaha degan ilaa gabdhaha kale oo gabdho badan ay kaga hadlaan waxyaabaha amuuraha gabdhaha u gaarka ah aniga jamca waxaan ku qoranahay axad kasto gabar kale waxay ku qoran tahay arbaco waxaa lagaga hadlayaa arrimaha caruurta teenage-ka caruurta madax adkaada mental health-ga marka qolkaasna waa jira qofkii rabto aniga haddii message yar iisoo dirtid maxay toon waa ku soo diraya qolka iyo waxa lagu galaya gabdhahana waa u sheegaya marka hal isku dadaalo ilaahayna hala baryo salaatana hal tukado diintuna hal ugu adkaado maxay ahay toonay bas diintu way dejisaa dadka salaada ku qaboojinay qofku mental health-ga waxa lagu leeyahay qofku ka diin badan yahay diintu xataa ay islaam ahaan dadkan adigu dad waxa jira iska cawaano ilaahay jiritaankiisa aan aaminsanay laakiin qofku ka diin badan yahay uu ka raysasho og yahay xataa hadduu kugu dhaco cudurka ma fahamtay waa cudur jira waana cudur adduunyadoo dhan ay la tacaalayso intaas oo billions ku bixinayso marka hala dhuumanina seek help please raadsada caawinaad wanaag aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaantiinba mar kale waxaan u mahad celinayaa Aamina Muuse Weheliye iyo intii nagala qayb qaadatay farsamo yaqaanada horta hore magacyadooda u soo wada sheego dib ugu noqon maaye ugu dambeyn waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shirkadda weyn ee Habboon Deeqa oo barnaamijkan iyaduna maalgelisay Habboon Deeqa mar kale aad iyo aad baad u mahadsantahay baan leeyahay intiina daawanaysan hadda waad mahadsantiin haddaad noo baahan tihiin nagala soo xiriira ciwaankaad hoos ka aragtaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo